walaashii waxaan ku leeyahay marnaba ha noqonin doqon aanan danteeda ogeyn. Waxaan kaaga digayaa in aad rumaysatid nin xaas iyo caruur leh oo ku dhahayo xaaskayga adiga ayaan kaa jeclahay oo xaaskayga nolol kuma haysto. Ogow ninkaasi naagta uu sidaasi leeyahay waa xaaskiisa, waa hooyada caruurtiisa, waa sharaftii noloshiisa, waa qofta uu la wadaago nolosha ee xasuustiisa aanan ka go'aynin. sidaas darteed waxaad ogaataa inuu rabo ninkaasi inuu waqtiga isaga ka lumiyo ama uu dheregdhacsi ka dhigto. ninka xaaska uu haysto dhahayo ma jecli oo ma rabi adigaan ku rabaa wuxuu kuu sheegay been, adigana caqli xumadaada waa qalad inaad rumaysatid. ogow adigana inuu berrito sidaasi kuu geli doono. fadlan ninka ha ku soo dhawaysanin xaaskiisa ayaa ku xun ama wuu nacay. ninka ragga ah ee daacadda ah waa kan ku faana xaaskiisa inuu jecel yahay. hadduu xaas labaad rabana aanan ka qarinin jaceylka uu qabo xaaskiisa iyo caruurtiisa, una sheega in iyadana uu siin doono jaceylka mid la mid ah. nin waxaa ugu dulaysan oo uga caqli xun uguna jaahilsan kan xaaskiisa xalaasha ah ka sheegaya hadal aanan fiicnayn, isagoo isleh ku soo jiida gabadhan in ragoo si sharaf leh wax ku raadso, balse xaaskaaga ha ka sheegin war been ah iyo wax aan jirin adiga oo ku raadinaya in aad ku soo xerogelisid gabar kale.